qodobka labaad xasan waxaan leeyahay laba halba iska daa horta calaacalka badan iska daa qofka bini aadmiga calaacalka waa loogu badanyay inaad calaacasho laba nafti ha fara noqone waxaanad yeeli karaynin mar walba ha sheegin haddaad xukunto miyaa timaadid go-aankan iyo MOU-gan waan fulinaya waan kuugu celinayaa waan fulaya dhibaatooyin badan baan soo maray laakiin maanta waxaanu taagannahay waa markii ugu horreysay ee aynu hayno dowlad Afrika ah oo xoog leh oo ku dagaalamaysa oo caddaysanaysa annagu Soomaaliland waa ictiraafayna adduunyada nin waliba dantiisu mu raaca nin sadaqa ma siiyo charity ma siiyo dal waliba dantiisu eegale halkaa maxaan ka helay tusaale wanaagsan waxaan soo qaadanayaa South Sudan oo aan uga diyaar ahayn dowladnimo qabaar istilaya shidaalkii laga helay shiinu soo saaray ayay reer galbeedku dabcan la wareega dadka way kala gooyeen oo way ictiraafeen markaa waa inaad awoodda aad leedahay waana iibisa awoodda aad leedahay hadduu population yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu macdan yahay hadduu strategic point yahay waxaa laga rabaa inaad dee aad cid yeelato sidaa darteed waxay nala noqotay qolada dowladda in Ethiopia danta ay leedahay dantaan leeyahay aanu midayno oonu baargeyn garayno adiga maxaa kuu daran bad seed u gaadho أنا ما حايد درن اعتراف إن اليوك هذه هو رصيده والله هذا ما سوافة شكرنا ها توان سوافة شلوا كل شيء يتنور كل شيء ومركي يجوه الرئيسي وصاب وحوت شجر رنتا الصومالية صور راعي كونفور أردتها سي ما أنت وحله إلا بشي جين وركودي madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh wuxuu hadlay in ka badan 11 jeer in ka badan buu hadlay maalin qura ma ledin taas waxay ka dhigan tahay adiga oo la yiraahdo anigu gurigaaga aan ku maamulo hebelow gurigaaga ana ku maamulaya qodobka labaad xasan waxaan leeyahay laba halba iska daa horta calaacalka badan iska daa qofka bini aadmiga calaacalka waa loogu badanyay inaad calaacasho laba nafti ha fara noqone waxaanad yeeli karaynin mar walba ha sheegin waxaad leedahay Somaliland badeeda anaa xukumaa la soo maro haddaad xukunto miyaa timaadid run baynu isu sheegaynaa haddaba qayladani ka weyn adduunka aad ku wareerinayso anaa xukumaha la ii dhiibay nafti ha farbaati intii aad awooddeeda ku ekow go-aankan iyo MOU-gan waan fulinaya waan kuugu celinaya waan fulaya qofka hadlaya hadduu laba qof yahay waa mushkilad weyn marka aad leedahay Soomaali waan ilaalinayaa oo badda Soomaaliyeed baan ilaalinayaa oo waan u turayaa oo waa dadka ka naxaya waryaale xasano adiga kuwa kula midkii diyaaradii Hargeysa markay garaacaysay ee agoonta iyo islaanta waayeelka aad iyagoo dariiq marayo qaxay oo ka carreey diyaaradda la daba joogay waa markaa miyaa ka naxaysan soo jeclayday